kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal halkani waa Bisle TV kusoo dhawaada warkii caalamka iyo guud ahaan geega soomaalida. warka waxaad ku daawan doontaan qodobo xiiso badan balse aan ku hormaro qodobka doorka roole. guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa diiwaangeliyay qaar ka mid ah musharaxiinta doorashada aqalka sare. xildhibaan ka tirsan xildhibaanada soo baxay ee golaha wakiilada Somaliland ayaa eedeymo u jeediyay xukuumadda Somaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biix Cabdi. wararka caalamka qodobada ugu doorka roole daawan wataana waxaa ka mid ah Israa'iil ayaa awood kale u sheegatay dadka reer Falastiin halka uu dhintay mid ka mid ah hogaamiyaashii kooxaha ka jira dalka Liibiya iyagoo hormoodka u ah kacdoonada hareeyay gudaha wadanka Liibiya. intaas waa qodobada warka kuwooda ugu doorka roole. imikaatana waxaa isku diyaarisaan qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan. xildhibaan Khadar Cali Xakiin oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadan ayaa xukuumadda Somaliland ku eedeeyay in afduub ku haysato xildhibaan Ibrahim Maxamed Jaamac oo caan ku ah Khadar Guun. xildhibaanka ayaa sheegay in xildhibaan Khadar Guun la waayay meel uu jaan iyo cirib dhigay kadib markii uu xalay warbaahinta ka soo muuqday isagoo sheegay inuu taageersan yahay xildhibaan Faratoon oo xisbiga kulmiye u sharaxay jagada afhayeenka baarlamaanka. waxaa la sheegayaa xildhibaano la afduubtay oo meel ay ku sugan yihiin aan la garanaynin oo inta hal sawir la soo galay meel la tagay aan haba yaraatee la garanayn. qaabka ay wax u socdaan waa qaabkii dalka naga xumeyn lahaa. waxaan leeyahay wanaagga iyo sharafta lagu soo noqdo. guryahoodii oo dhan baa la booqday oo waa laga waayay. walaalahood baa loo tagay hablo borooranaya ayaa oo xildhibaankoodii Khadar Guun ee xalay la soo sawiray meel uu jaan iyo cirib dhigay la yahay ilaa haatan ayuu hadalkiisa sii raaciyay xildhibaanku. xildhibaan Khadar Guun oo ka soo baxay xisbiga wadan isla markaana hore uga tirsanaa isbahaysiga mucaaradka ayaa beenka xalay ku dhawaaqay inuu taageerayo xubnaha xisbiga kulmiye u sharaxay shirgudoonka golaha wakiilada Somaliland. muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa Somaliland ka socotay xaalad siyaasadeed oo ku saleysan cidda hogaamin doonta shirgudoonka golaha wakiilada Somaliland ee cusub xilli dhowaan la doortay 82 xildhibaan oo iyagu fadhiisan doona kuraasta aqalka wakiilada Somaliland oo ay baneeyeen xildhibaanadii hore. waxaana loolanka adag u dhaxeeya isbahaysiga mucaaradka iyo xisbiga kulmiye waxayna habeenadii dambe soo baxayay xildhibaan iyagu labada dhinac ku kala biiraya oo midba dhinac ka baxayo iyadoon ilaa haatan aanay mudanayaasha cusub ee golaha wakiilada Somaliland aanay fadhiisan fadhigooda u horeeyay. waa kan lagu dooranayo codka hogaamin doonta shirgudoonka golaha wakiilada Somaliland. guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa bilaabay diiwaangelinta qabashada codsiyada xubnaha musharaxiinta ee u tartamaya kuraasta aqalka sare ee Soomaaliya gaar ahaan qaybta Jubbaland. guddiga ayaa isla galabta soo gabagabeeyay wajigii koowaad ee diiwaangelinta musharaxiinta waxayna qaar ka mid ah musharaxiinta aqalka sare guddoonsiiyeen shahaadooyinka cadaynaya musharaxnimadooda. musharax Ilyas Bedelka Boose oo u tartamaya kuraasta aqalka sare ayaa noqday musharaxii ugu horeeyay ee isdiiwaangeliye kaas oo la siiyay shahaadada aqoonsiga musharaxnimo. guddigu waxay guud ahaan shahaadada musharaxnimo siiyeen 6 musharax oo kala ah Ilyas Bedelka Boose, Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, Iftiin Xasan Baasto, Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan, Xaliimo Jaamac Maxamed iyo Maxamed Axmed Siyaad. dhinaca kale guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa si wada jir ah u kormeeray goobta loo asteeyay in maalinka berrita ay ka dhacdo doorashada aqalka sare ee dalka iyadoo si guudna amniga goobtaas lagu wareejiyay ciidamada booliska dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidamada booliska AMISOM. Jubbaland waa maamulka ugu horeeyay ay ka bilaaban doonaan doorashooyinka aqalka sare xilli maamulada kale qaarkood ayna weli soo magacaabin gudeedii doorashada aqalka sare. Maxamed Alqaali oo ahaa hogaamiye maleeshiya reer Liibiya oo lagu eedeeyay inuu boqolaal rayid ku laayay magaalada Turhana ee galbeedka dalka Liibiya ayaa waxa shaaca ka qaaday inuu dhintay salaasadii dhowr la wareed oo maxalli ah. kan wuxuu ahaa hogaamiyaha maleeshiyada caanka ah Kenyaat oo sidoo kale loo yaqaan guutada 7 ama guutada 9 oo ka tirsan taliyaha bariga Khalifa Haftar ee ciidanka qaranka Liibiya ee loo soo gaabiyo LNA. shabakada wararka Mashhad ee Liibiya ayaa soo xigatay
ilo maxaliya oo sheegay in kani lagu dilay beeru ka deganaa magaalada Benghazi. wariye Maxamed al-Misri oo lagu tiriyo inuu ka agdhow yahay LNA ayaa ka soo wariyay ilo military isagoo sheegaya in kani la dilay xilli iska difaacayo weerar lagu qaaday hoogiisa ku yaala Benghazi si loo xiro isaga iyadoo lagu saleynayo amar diido uu sameeyay kadib laba qoraal oo ka yimid dhanka madaniga iyo garsoorka militariga oo ku saleysan cabashooyinka ka dhanka dambiyada loo aaneynayo isaga inuu galay sanadkii 2019. Misri wuxuu ku sheegay bartiisa Facebook in mid ka mid ah saaxiibadii kani la qabtay mid kalena la dilay. tiro ka mid ah asxaabtiisa ayaa sidoo kale lagu xiray aaga kala duwan oo ka kala tirsan Benghazi, Ajdabiya iyo Tobruk iyadoo lagu saleynayo qoraal ka soo baxay dacwadoogaha madaniga iyo dacwadoogaha militariga ayuu wariyuhu intaasi ku sii daray. wargeyska Al-Qudus Al-Carabiya ee xaruntiisu tahay magaalada London ayaa sidoo kale soo xigtay ilo maxalliya oo xaqiijinaya dhimashada hogaamiyaha maleeshiyada. telefishinka Liibiya ayaa sii daayay muuqaalo dadka deegaanka ay ugu dabaaldegayeen dhimashadiisa kani xilli dambe maalintii Salaasadii. Israa'iil waxay maxkamadaha u adeegsataa aalad siyaasadeed si ay uga soo wareejiso dhulka Falastiin gacantooda bariga Qudus iyadoo ujeedkeedu yahay magaalada la isku haysto in lagu abuuro taariikhda Israa'iil leedahay. iyagoo wajahaya amurada Israa'iil inay dumiyaan guryahooda, Falastiiniyiintu waxay ku calaacalayaan in nidaamka garsoorka ee Israa'iil loo adeegsado aalad siyaasadeed oo lagu bedelo xaaladaha hadda ka jira bariga Qudus ee la haysto iyo guud ahaanba arlada Falastiin. Axmed Amarra oo ah wadoodaha ka soo horjeedka degsimooyinka Israa'iil ayaa u sheegay wakaalada Anadolu Agency nidaamka garsoorka lagama jari karo waaxda fulinta iyo mas'uuliyiinta sharci dejinta ee Israa'iil. dhulka ayaa laga bixinayaa gacanta Falastiin iyadoo loo gacan gelinayo gacmaha Israa'iil, ayuu yidhi. maamulka Israa'iil ayaa dhowaan ku wargeliyay 86 qoys oo Falastiin xaafadaha Batan al-Hawa ee bariga Qudus in laga saari doono guryahooda. 100 qoys oo kale oo Falastiin ayaa helay amaro ku saabsan duminta guryaha oo ku yaal xaafadaha Al-Bustaan ee magaalada la haysto. qoysaskan waa inay raacaan amarada Israa'iil oo ay ka baxaan guryahooda ka hor 15 Agost ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Israa'iil. ku dhawaad 187 xubnood oo ka tirsan qoysaska iyo eheladayada ayaa loogu hanjabay in guryahooda si qasab ah looga saari doono. kuwaad order oo ka soo jeeda xaafadda Silwan ee bariga Jerusalem ayaa sidaas yidhi. fadeexada Faransiiska qaybta dambiyada maaliyadeed ee Faransiiska ayaa Salaasadii sheegtay inay dacwad ku soo oogtay garabka midig ee caanka Richard Daiti oo hore u soo noqotay wasiir ka tirsan golaha wasiirada dalkaasi isla markaana ay aad isugu dhawaayeen madaxweynuhu hore Nicolas Sarkozy soo la xiriira la macaamilkii ay la sameysay madaxdii hore Ronald Carlos. waxaa lagu eedeeyay musuqmaasuq dad badan oo ay la sameysay qof xil hayay xilkaas iyo ka faa'iideysiga ku tagrifal awoodeed oo la xiriira la talin ay u sameysay Johnson sanadihii 2010 ilaa 2012 xilligoo ay sidoo kale ahayd xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Yurub. sida laga soo xigtay ilo ku dhow baaritaanka, Daiti waxay yeeshay 900,000 oo euro oo dhiganta 1.6 bilyan oo dollarka Mareykanka oo khidmada qaranka muddadaasi. Daiti hadda duqa degmada toddobaad ee Paris ee garabka midig ee xisbiga Republicans mararka qaarna loo saadaaliyo inay noqon doonto musharax madaxweyne mustaqbalka. waxay soo noqotay wasiirka cadaaladda ee dowladii Sarkozy intii u dhaxaysay 2007 ilaa 2009 waxayna sidoo kale ahayd afhayeenkii ololaha ee xilliga doorashada. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxaa saaran cadaadis inuu raaligelin ka bixiyo dhaxal xumadii iyo burburkii 10 sano tijaabinta nukliyeerka ee lagu sameeyay Faransiiska. kadibna wuxuu si dhaqso ah u soo gabagabeeyay safarkiisii ugu horeeyay ee uu ku tago gobolka. dad badan oo ka tirsan jasiiradda ayaa rumaysan in tijaabooyinka nukliyeer ay sababeen kororka cudurka kansarka ee ku dhaca dadka, waxayna dalbanayaan daafurnaan dheeriya iyo sidoo kale magdhow. Macron wuxuu booqanayaa Faransiiska jasiirado ka badan 100 jasiiradood markii ugu horeysay tan iyo markii la doortay
sanadkii 2017 madaxweynaha xilligaas uu dib u dhigay booqashada qorshaysnayd ee 2020 uu ku tegi lahaa dhulka dibadda sabab la xiriira cudurka COVID-19 ayaa sabtidii gaadhay Tahiti iyadoo uu ka bilaami lahaa safarka uu ku bixinayo jasiiradaha maqribnimadii sabtida loogu talagalay joogitaan 4 maalmood oo ku bilaamaysay booqasho cusbitaal ku yaal jasiiradda caasimadda ee Bisle. dhowr siyaasadeed oo reer Boloniisiana iyo ururo kale ayaa ka digay sanado badan saameynta mustaqbalka fog ee shucaaca tijaabooyinka. dalkani dhibaato badan ayuu kala kulmay tijaabooyinka nukliyeerka uuna la ildaran yahay markaan aragno in saynisyahano caan ah ay hadda saadaalinayaan in cudurrada shucaaca ku dhaca ay leeyihiin saameyn jiil. waxaan la yaabanahay waxaan u gudbin doono caruurteena. Antonio Guterres madaxweyne xigeenka xisbiga gobonnimadoonka Tafiyan Huratura ayaa u sheegay shabakada warbaahinta dibadda ee France ee Outre-mer booqashada Macron ka hor. dhowr kun oo qof ayaa ku mudaharaaday Babeti bishii Luulyo 17 si ay u sharfaan dhibanayaasha mid ka mid ah tijaabooyinkii ugu wasakheynta badnaa ee loogu magac daray Center, kaas oo lagu qabtay taariikhdaas 1974 oo u dhow Mariora. mudaharaad kale ayaa dhacay sanad guureedii 2 Luulyo ee tijaabadii ugu horeysay ee nukliyeerka ee faransiisku ka sameeyo Polynesia. intaas waxaan kusoo afmeerayaa warka Bisle TV. intaan ku kulmayna warkan iyo warar kaleba waxaad kaga tegayaa sidaas nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.